la ogaaday ciidamada kuubaanka ah iyo isbahaysiga Soviyeetku hogaaminayo iyo hubka xadaafka ah oo lagu soo qulqulinayo Ethiopia golaha dhexe xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda koow laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyay ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed iyo dawladda Midowga Soviyeeti sanadkii 1974 labo laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa la joojiyay dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda cirka iyo dhulkaba lahaa oo Soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee Midowga Soviyeetiga saddex qubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka Midowga Soviyeeti ka joogta Soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman afar dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxay warsatay tan Midowga Soviyeeti inay yareyso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradeeda iyo laamaheeda ka jooga Soomaaliya lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa Soomaalida ah ee jooga Sovietka shan golaha dhexe markuu arkay faragelinta dawladda Kuuba oo u soo dirtay gobolka Geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageerayo xukunka Ethiopia wuxuu go'aamiyay in loo jaro dalka Kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya lix goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta shaqaalaha iyo khubarada Kuuba. Anti-Soviet demonstrations in Somalia greeted the government's decision to send the Russian advisors and their families back to Moscow. All Soviet support was now switched to Ethiopia.